Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Madaxweynaha Maamulka Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ka hadlay tagitaankooda magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Madaxdani ayaa waxa ay sheegeen inay rajo weyn ay ka qabaan in wax Soomaali ay ku faraxdo oo ka soo baxo. Ugu horeyn kulanka ayaa waxaa ka hadlay Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor. sidii ballantii iyo qorshuhuba ahaa shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo rajaynayno kuna kalsoonahay insha Allah inay ka soo baxaan wax Soomaali dan u ah la socda xaaladaha jira xal wanaagsan lagu gaaro. Sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Madaxweynaha Maamulka Jubbaland iyo kan Puntland ayaa ka hadlay madasha, waxaana ay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan in wax muhiimad u leh ummadda Soomaaliyeed ay ka soo baxaan shirka la filayo inuu ku dhex maro magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. laga soo doortay ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqaynaysaa waxay nasiib maanta u heleen shirkaani inuu ku soo hagaago xilligan oo Dhuuso-Mareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo wuxuu noqonayaa shir taariikhda gelaya. waxaad xusuusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la odhan jirayo waqtiyo adag oo kala guuraha Soomaaliya maanta xaaladday ku jirta waan iska garanaynaa, waqti iska yara adag. waddan walbana markuu xaaladda doorasho u soo dhowaado waxaa iska bilowda karays siyaasadeed iyo waxbaa taagtaagma. laakiin maanta Soomaalidu waxay aada u soo wada fiirinayaan Dhuuso-Mareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn dalow waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajaynaya weliba inay wax fiican ummaddu dhagaheeda u waxaysan yihiin oo Soomaalinimada iyo Soomaalidaba u fiican. way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikha inaad maanta shirkaa martigelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo weliba waqtigiinuna hadda cusbaa xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna hawlo badan hadda ku jiray iyagaan ururin lagu jiray inaad isa soo xilqaantaan ood kulli intaad soo ururisaan culayskaas oo idinku dhaco waxaa ka dhalan doonaa ka fiican. aad baan taas idinkaga mahadcelinayna. lagu faraxsan yahay oo Soomaalinimada iyo hanaankii dowladeeda socday oo waqtiga dheer maalinba meel soo marayay sidoo hore ugu sii socon lahaa aad iyo aadan ugu faraxsanahay. waxaan u nimid shirkaas, waxaan nimid dalkaanagi, waxaan nimid deegaan aadna looga jecel yahay oo dad walaalaha anaga oo saaxiibada anada ah oo ehelka anaga ay joogaan oo dal Soomaaliyeed. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa wixii aan u nimid oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay maanta ay leedahay ay rajo ka leedahay ay fiirinayso inuu noqdo si idin la rabay oo lagu farxo inuu Ilaahay ka soo saaro. yani Ilaahay ka rajaynaynaa. waxaan rabaa inaan si gooni ah ugu mahadceliyo madaxda dowlad goboleedka koonfur dowlad goboleedka Galmudug. waxaa sharaf iyo karaamo noo leh maanta inaan soo booqanno caasimadda Galmudug ee Dhuuso-Mareeb. waxaan aad iyo aad iniga mahadcelinayaa soo dhoweyntii diiranayd ee walaalnimada ahayd oo aan malaynayno inay Puntland si gaara maadaama daris dhow tahay aad noo fidiseen. waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan dadka reer Galmudug gaar ahaan dadkii maanta ku sugnaa Dhuuso-Mareeb oo ka qayb qaatay soo dhoweyntaas. waxaan aad ugu faraxsannahay shirkan lagu baaqay inaan ka soo qayb galno. sida aad u sheegtay waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado, Soomaalina uu horseedo wanaag iyo horumar. annaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa muddada aan joogno inaan wixii talo ah aan meeshaas ku darsanno. sidoo kalena Puntland iyo Galmudug fursadaas aan uga faa'iideysano inaan kulamo gaar ah oo danihii naga dhaxeeyay iyo shirarkii noo socday aan fursadda uga sii faa'iideysanayno. aanan rajaynayno in kulamadeenaas ay joogto noqon doonaan.
Si kastay ahaataba waxaa laga dhowr sugayaa waxa kasoo bixi kara shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kaas ay ku kulansan yihiin madaxweynayaasha Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo maamulka Jubbaland kaas oo Soomaali badan ay isha ku hayso. Ismaaciil Abuukar Kasmaal Group, Muqdisho.